odayaal waxaad ku soo dhawaataan wareysi gaar ah oo aynu ku eegi doono howlgallada ka socda gobolka looga sifeynayo kooxaha argagixisada al-shabaab waxaana mid ka mid ah furumaha hore ee deegaanada ay ka socdaan dagaalka ka dhanka argagixisada aynu kula kulannay isla markaana ku wareysan doonaa xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalosh oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya oo bilihii ugu dambeeyayba ku sugnaa furumaha hore ee deegaanada ka socdaan dagaalka xildhibaan soo dhawow ku soo dhawow telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxa faahfaahin kooban oo naga siisaa halgan kadib u xiraynta ee ka socda guud ahaan dalka si gaar ah gobolka Hiiraan. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Horta waa aragtaa meeshaan taaganahay waa nawaaxiga Ceel Hariiri oo laba maalmood ka hor dagaal kharaar uu ku dhaxmaray khawaarijta iyo dadka dib u xiraynta ee deegaanka iyo dawladda Soomaaliya oo iskaashanaya. Waan aragtay waxa meyd iyo burbur iyo dhibaato loo geystay cadawga dadka deegaanka iyo dawladda wada socdana Ilaahay guusha waa siiyay. dagaalku wuxuu ka soo bilaabday sida marar badan aan sheegay gudaha Itoobiya laakiin Soomaaliya xoogeedu wuxuu ka soo bilaabday degmada Matabaan meesha aan taaganahay degmada Matabaan waxay u jirtaa 236 kiiloomitir 236 kiiloomitir oo dherer ah iyo intoo kale oo balac ah oo laga bilaabo webiga Shabeelle barigiisa ilaa ku tagta wabxo xaqana ku tagta aadii baar afkiisa horta waa xor qodax ka mudaysa ma jirto wax absiyo shabaab ma jirto geed kamidna shabaab ma joogo gobolka Hiiraan qaybtiisa bari waa galbeed gobolku wuxuu qaybsamaa bari iyo qoraxsin ama galbeedka iyo qorax ka soo baxa dhinaciisa qorax ka soo baxa 99% waa laga xureeyay 1% ayaa ka dhimanoo xoogaa sifayn u baahan ayadana maalmaha soo socda hadii la yiraahdo waa la soo afjari aaga bari dabcan bini aadamku waxa dhici karta howlaha inuu kala hormariyo sida ugu dhaqsiyaha badan howlgalku waxaan jeclaan lahaa iyadoo la wada jiro in uu dhinaca qoraxsinkan uu ka bilaabmi doono dadka deegaankaasuna waa is abaabulayaan halganka intana waa uga qayb uga yihiin xaqana ayaga difaac ku ah oo meeshaas ay joogan kaalinta shacabka ama ciidan dadka deegaanku ay ka qaadanayaan iyo ciidamada qalabka sida kaalinta dadka deegaanku ay ka qaadanayaan waa kaalin lama ilaawaan ah waxayna howlgalka u yihiin lafdhabar la'aantoodna wax dhaqaaqi qaray maba jiraanba sida dad badan ay fahamsiin waa markii ugu horeysay oo si rasmi ah dadweynaha ama dadka deegaanadan iyo dawladdu iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isku la jaan qaadaan guulahana waxa sabab ah isla halkaas wada shaqayntaas kalsoonidaas dadka iyo dawladda dhaxmartay ayaa sabab ah mana la qiyaasi karo dadku sidii ugu helayeen waa ka horeeyaan dawladda hadda meeshaan aan joogno marka special forceska ciidamada oo gooniga dawladda laga tago ilaa meesha ugu dambaysa dadku ayaga difaacanaya dawladda ayaguna dadkuna waa iska garab dagaalaan difaacana waa isku la jiraan jiidaha waana isla howlgalaan marka waxaan leeyahay wada shaqaynta dawladda iyo dadka iyo kalsoonida ka dhaxaysa waa aad ay u sareysaa guulahaas daba joogga la gaarayo ee dadka deegaanka iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliya ka gaarayaan kooxaha argagixisada al-shabaab marka aad u eegto farqiga u dhaxeeyo howlgalladii hore ee ciidamada dawladdu ay ka sameeyeen jireen deegaanada ama gobolada kala duwan ee dalka iyo maanta oo dadka deegaanku ay ka qayb qaadanayaan maxaa farqiga u dhaxeeya islaadahay horta xaajo walba xilligeeda falantaadi marka ugu horeysa mar oo dadku kacsanaa oo dawladdu xoogaa dansaneed iyo mar dawladdu kacsaneed oo dadku dansanaa iyo tashuush shabaabka oo wado dadka oo qaybinayo qoqobaay ayaa sabab u aheeday in la isla heli waayo horumarna laga gaari waayo guushii la gaaran la difaacdo la kari waayo hadda waxa sabab dawladda hadda cusub oo ay ka go'an tahay shabaab waddanka laga xoreeyo iyo dadka oo ku daalay na u adkaysta waayay ciriiriga iyo culayska iyo cadaabta shabaab ku haayo dherigii ayaa karbagay marka waxaan leedahay right time waqti ugu habooneed oo leadershipka ama hoggaanka dawladuna ay ka go'an tahay oo campaign-kooda iyo hortabinta doorashadooda ay aheeday la dagaalanka argagixisada iyo ka xoreynta shabaab ee dalka oo rasmiya iyo dadkii oo taas rasmi ka aaminay oo rasmi u aaminay oo markaas qalabka qaatay haddii aan kula tartamo xildhibaan federaal ayaa tahay ma aysan tegi jirin xildhibaanadu furmaha hore dagaalka iyo goobaha ay ka socdaan dagaalada u dhaxeeya argagixisada iyo ciidamada dawladda ama dadka deegaanka adigoo xildhibaan federaal ah maxaa ku keenay furmaha hore dagaal xildhibaanka horta dadka soo doortay daruufta dadkiisu ay ku sugan yihiin ama waxa dadkiisa ka go'an in sameeyaan waa inuu qayb ka ahaado
dadka iyo xildhibaanku dad dawladda iyo dadka xildhibaanka iyo dawladda waa hal waajibay leeyihiin oo ah dadka ammaankooda iyo dadka waxay danaynayaan in laga shaqeeyo hal waajiboo kale leeyihiin oo dalka in la xoreeyo waajib kale waxay tahay buundadii dawladda iyo dadka isku xiri jirto waa xildhibaanada bacdaba marka actionku ama wada shaqaynta shacabka iyo dawladda ay xoogaysatay dadkii ka shaqeeyay in shacabka iyo dawladdu wada shaqeeyaan shacabka uu isku xirmo la abaabulo oo ayagu ay midoobaan oo khilaafaadka dhexdooda iyo qoqbanaadka dhexdooda la saaro farqiga ayaga iyo dawladda u dhaxeeya la xadido ciidamada la niyad geliyo ciidamada iyo ayaga loo dhaxeeyo hadii waa qof la doortaan waxana loo doortaan waxa kamid ah dadka inaan dhex joogno danahooda ka shaqeyno difaacno har iyo habeen haday qabtaan iyo haday quutaan aan qayb ka ahano way rajada ku muuqata maanta maxay tahay markaad si guud ah u eegto howlgallada ka socda gobolada kala duwan rajada waa aad u fiican tahay si guuluhu waa isdaba joog ilaa hadda wax dib u dhaco macnada oo aan la kulmayn ma jiro hal kamidoona la ka raawo waxay tahay shabaabku wuxuu nooga bartay wuxuu aaminsan yahay shaqada ahayn in ka daalayno iskana dayn doono ama anagu isku khilaafay doono koow anagu inaan isku khilaafin labo cadowgu waa jilicsan yahay hoosuun u sii socdaahe inaanan kala kicin ama aanan halganka iyo hawsha aanan marnaba biyadeeska ilaalino oo aan ku adkaysano oo asaguba wax xaq darro ku midtay anagu xaqaan haynaa aan mintidnimadeena iyo dagaalka meesha aan uga jirno aan ku sii raxino ka wili dad ayaa aaminsan jira in howlgalladan ay la mid yihiin howlgalladii horeeto kaleeto oo ay dawladdu ka daali doonto maxay tahay no so far muddo 4 bilood ayaa howlgalkaanu socday wuxuu ka socdaa shabeellada dhexe wuxuu ka socdaa galmudug wuxuu ka socdaa halkan wuxuu ka socdaa qaybo kamid ah Baay Bakool iyo South West qabaqaaba ka socota Jubaland la mid ma noqon kariyo mana la mid ahan kan waa waji cusub meeshii wixii shalay laga shaqeynaa waxaan ahayn iyo si aan ahayn loo shaqeynayo aad u mahadsan